maanta waxaan doonaynaa inaan ka sheekeyno sheekadii maalmaha baraha bulshada haysatay taasoo wasiir khadiijo ay ku dhaqaaqday ayaan doonaynaa inaan ka sheekeyno iyo culimmada qaarkeed iyakana ka hadleen oo dad badan ay ka hadleen wasiiradda oo maalmahan mararka qaarkood la dhihi karo dhaqankii soo jireenka soomaalinimo way ka yar xoogaa babcan tahay ama la dhihi karaba gabdhaha soomaaliyeed bay xoogaa ay baraysaa sheeko kale oo sheekadeenna inaka soomaali ahaan aan ku habboonayn ayay baraysaa ayaa maanta rabna inaan ka hadalno asxaabta mar kale kusoo dhawaada waxaan kusoo dhaweynayaa saaxiibkay oo cabdullaahi macalin kaasoo asagana aan ka wada hadli doono ama ka sheekayn doono sheekadan cabdullaahi soo dhawow ودوي أنا أمها سنتها. thank you نيجا وين هرتا ومعلمان أريها بالشدة يو السوشيال ميديا. social media هرتا وحاها ستي قضية مع خديجة يعلمنا قاركت. واقف سيا شيخ أمل يو شيء مارتي عبدي حرسي يعلمنا كلا أمارت كلا صومالي وفربهم ووينهم وكهلين. أي واقف صومالي لما مركز أجوا توا أنت بدن ويكهلين. واقف هو يوتيوب ليدا هو كلا فيسبوك حكوا لقى لما waa lagu yaacay barnaamijkan waasaas barnaamij horta barnaamij khatar oo aad maartay halis weeyaan waaga wuxuu ka soo bilowday maamadan maama khadiija wasiiradan ayaa ka soo muuqatay muuqaal la arkay ayadoo waxa weeyaan nooc u muuqatay inay ka fog tahay dhaqanka Soomaalida iyo diinteena Soomaalida ka fog waaga arrintii markaad culimada Soomaaliyeed ee moogtay la xil baa saaran culimada warathul anbiya weey moogtay xil baa saaran حل بصارن واساس ولي marka waxay bilaabeen qaarkood inay ka hadlaan arinta ay naqdiyeen sheekh Umar baa ku horeeyay waxa ku horeeyay oo ku xigay kala malinaya sheekh Cabdi Xirsi baasna ku xigay waa gartay culimada kala ku xigay hay sheekh Umar marka si adag buu hadlay marka waa gartay macnaha qofkan meeshu joogo waa wasiir aye oo indhaha haya wasiir weeyaan waa gartay dadku wasiir yahay waa ummad dad muslim boqolkiiba boqol muslim weeyaan waa gartay macnaha anshax aan loo baahnayn ayaa meesha ka muuqday waa gartay sheekh marka tuu xanaaqay ku durduriyay hadda Cabdullaahi meel dhigi karay marka qaarkood wasiiradu marmar qaarkood xogaa fani ku jiro way dhalinyarada waa sheekada waa sheeko kale oo maanta ayay ku leeyahay kala taa marinaya waa gartay sheekhu marka mas'ale uu ka hadlay marka waa gartay aad buu uga hadlay wuu aad buu radiyay nasiixana uu muujiyay waa saas waxa soo ka hadlay sheekh Cabdi Xirsi waa gartay baasana ka hadlay oo macnaha asagoon ku tagtaagsaday waa gartay ku nuxnuxsaday kadib wasiiradii waxay sameysay nasiixadii loo jeediyay iyo culimadii waxa ay u jeediyeen ma aysan qaadanin way ka dhagaadagtay ma aysan qaadanin maya ay bas wayba dagaal bay gashaba waa gartay fooday ku xirtay idan hadii miya xaq u leeyahay ilaa inay dagaalanto maadaama iyada maya xaq ma laha waa gartay xaq waxay leedahay in nasiixada qaadato ilaa khalad baa lagu qabtay mugti khalad baa lagu qabtay waxa la qabay ayadoo wasiir waa wasiir Cabdullaahi wada saad ogtahay qof maadaama uu hadlay wasiir ha ahaado ma gafo waa ilaah qofkan macsuum maaha haduu gafay ميسا شيخ عمر وصل في هدوء قفي ولا نصيحية لكن ما في عناتين أو تسد أو كول تلاصق وزير بهتاي هذا الكوالق ما صار حكفي عن قفك دو سي بابلجا أما سي مارتي أو مارتي هير عالمية أو خلط أقرأ وإن سي بابلجا هير عالمية لو جواب الربا واي ضد كان كلام مؤجان هي إن لو قفك لو رديه مؤجا هذا طرفين وصل هذا أنا مؤجان هي معنا قفك إن علماء أي شقوق جودتي مؤجان هي ayada marka aan weydiinaysaa ama ogolanaysaa midka arinta dii hoos loola hadlo waa intaas diiday moogtay saan oo ahaateen hawlowd oo ma ahaateen dadka ka warqabeenba على taxal wasiiradii waanadii ma aysan qaadanin sheekhi bay kula boodi lafteedii kula boodi sheekh Umar waan gartay waxay tidii adaa nasiixa u baahan gebigaaga ba adiga kuwa qolal ku xiran ba inta sheegtay cunugga maxaa u malaynay sheekh Cabdi Xirsi ku jida malaynay oo meelaha jooga إني كان نصيحة وباهن إسلاميين قرابين واحد يقار قاون واقرته وحيكون هذا يسألني سكهلين قرحية واقرته وحيكون يسألني كهلين أروراها الله كفصان هيو وحيكون يسألني كهلين وحوي علاج الدمين هيو وحيت ذي ما محاين كاتوسي أنا كمحاين كاتوسي محاين كساري عبد الله وهذا الكلام وته حتى كهر وحاد علي إني كان عبد الرحمن عبد الشكلو يقال أصور حيل كهل جرمر كجوجة أنا كان مركز لا تلاقيه قناة وزراء كه جرمر صح ayaa hadda ka hor wuxuu lafsi ka hadlay wuxuu culimada ahadiis eber la soo ordayaan buu yiri waa lagu qabsaday wakiid indhaha loo shaqay laakiin uu soo laabtay wala sii ninka ugu fiicnaa waxaan xasuustaa ninka Sheekh Xasan oo magaalada Nairobi oo yiri
waxaan la hadlayaa dadka la hadlayaa miinooyinkan ku xidhnay waan ka furnay buu yiri laakiin hadda wuxuu loo siman yahay dadka kale loo siman yahay asaw ma ninka waxa uu bilawnaa waa gartay waa dadkii saxwada iyo culimada uu haanjimo ko diinta xogaa waxa ka agdhawaa waa saas marka wuxuu dareemay inuu god ku dhaco dareemay uu ka soo baxay asoo ka soo booday saas islaanta loo baahnaa waa gartay marka calay taxal hawshan marka waxa la isweydiiyay maxaa islaantan maxaa saa u riixaya haye keed ma wax la qabsaday waxa la qabsado kale ayna la haystay islaantii ka horeysay وزير حزبان كحيانك برلمان سعديو بايدنا باحيدنا خالد وينقش خالد أنا عايز مقش أو كهر يسقى هاي خالد كاس وحوها إن وحي شيكتي إن علماء الإسلام علماء الصوماليات أي كفش اليوم برنامج أي ربتي حير أي صبر دكتي ربتي معناها برلمان إنه مرسيسو أو حير كما حير كحاجة جنسية oo inay culimada ka isguursadaan waxa ka isguursadaan aad ma akhrin laakiin culimadu waxay sheegaan waxa kamid ah in culimadu dadku isguursadaan rag isguursadaan dumarka sidoo kale naagtu haday zinaysto kale hadaan la khasbin inay xalaal u tahay xeer noocaas oo waxa la Kanada dadka riixayso Kanada waxa lacag laga cunay Kanada baa waxa laga qaataa leeyahay Sheekh Cabdi Xuseen baa sheegay wuxuu aan dhageystay buu yiri Kanada lacag iska bixinayo hawlaha ay war ana Sheekh Cabdi Xuseen aan dhageystay buu wasiirka ay hadlahay buu baarlamaanka Kanada la hadlahay buu wuxuu yiri rag baa dad baa noo shaqeeyay buu Soomaaliya baarlamaanka nooga shaqeeya oo lacag intaas oo aan barnaamij inay macna xeer jiray baas marayaan waa gartay hormariyaan tabtaagan oo dhaqan galiyaan waa saas wasiiradu markay aad uga xumaatay lacag waxa hel 100 milyan ah baa miiska saarnad baa leeyahay waa gartay haduu qorshihii hore hormar lahaa oo macnaha meel mar lahaa qorshihii oo xeerarka macnaha baarlamaanka labaha oo xagga jinsiga ahayd oo diinteena iyo dhaqankeena hadii xad gudub aan caadiyan ku ah waa gartay hadii la meel mar lahaa lacag meesha u taalay waa saas mid kale sarwaalkan boomaha la xirnayo bulshada la hor imaanayo waa dacwo lafteeda la idin lacag bad daba taala waa shaka kale weeyaan haweenka la bara islaanta la bari gabdhaheeda la baraya waxa raba dhamaan kuwa boomayaal qaba inay suuqa yaacaan baa rabaa waa gartay lacag baa daba taala Kanada waxay riixi baa leeyay waa saas Kanada ayaa riixisa leeyay waa hawl khatar marka laakiin la socon lafteeda kula hadlay hadda ka hor waxaan ka qayb galay xaflad sports ah oo gabdhuhu ay wada surwaal qaban finaanad indhaha saar aniga waa taas waa masax maaha wasiirada lafteeda markay hadlaysa xalay markay isdifaacsi way xujo ka dhigatay xujo waxay ka dhigatay kaliya surwaal ma qabaytid Soomaaliya dawladeeda dad badan oo dumar ah oo dawlad ku jira baa qabaytid dawladda dawladaha islaamkana oo rag badan oo madax islaamka rag ee dumarkooduna qaar baa qabaytid laakiin in culimadu hal mas'alo kale ban aad la yaabay culimada lafteeda qaar baan la yaabay waan gartay islaamahna waan la yaabay duqdan iyo gabadha kale baarlamaanka ku xigeenka ah labada waan la yaabay waan gartay duqda waan la yaabay labada gabdhaha waxaan kula yaabay ama islaamaha waxaan kula yaabay waxa la leeyahay dad muslim ah laakiin reebo mana bilcam ma dhahay sugdi waa ku waday islaam waxaan kula yaabay aad la yaabay waxa la leeyahay dad muslim ah waa gartay diinta islaamka haystaan baa leeyahay diintoodii baa laga hortaagan yahay oo weer mutaxandi sarwaala loo soo xiran buumayaal baa loo soo xiran xeerar baa la keeni waxa weeyaan oo maartay jinsiga oo lid ku ah diinta islaamka la keenaya wixii baa saa loo soo yaacinaya yur dadka loo hortaagan yahay ka daayay taa aad baan la yaabay waa gartay culimadana waan la yaabay oo islaamaha u ridii waxaan kula yaabay qof diintiisa laga hortaagan yahay oo diintiisa weerar ku ah oo sarwaal u soo xiran hayaan oo macnaha xeerar ummado kale oo gaala ay dawlad ka riixayaan rab inay baas marayaan xeerkan ay og yihiin inay diinta islaamka iyo dhaqankeena uu ku yahay xadgudub weyn ku yahay bal ay qofka qaata muslim uu sahayn og yihiin qofka xeerka qaata muslim ma ahaanayo qofka waxaan danaynaa inuu muslim ahayn baan u malaynay waxaan dhiraa culimada kula khitaabin oo qof qaar kula khitaabin qaaf inay tawxiid koow qaata diinta qaataan oo kale diinta islaamka inay koow qaataan kula khitaaban dhiraa anu waayo qof diintiisa duulaan ku ama muslim markaas Abdullah waa mahadsan tahay laakiin saad og tahayba innaka Soomaaliya markaan laga saaro dawlad badan muslimiin ayaa jira Pakistan waa dawlad muslim ah boqolkiiba boqol xaga waa ku jireen iyo shiicay wax waa iska jiraan shiicada ma masiixiin weeyeen yar bay leeyihiin laakiin nimanka Pakistan surwaalay wada qabaan iyo dharka caadiga ay qabaan da sax ma hadii xujo ma laga waa dadka khaldan diinta ka soco waxa kale kugu daraya dalalkan Asia dhanba kulli surwaal bay qabaan hada way looyeen Soomaha ana waan dhaanay diinta xogaa inuu ugu dambeysay haweenkan way xijabnaayeen okay waad mahadsantiin asxaabta inta ayaan ku soo koobinaa sheekadii aan kaga hadlaynay wasiirada oo waxaanu leenahay wasiirada iyo inta la halmaasha waxaa tihiin dad muslimiin ah aan ini aragno maadaama dal muslimiin aad joogtaan
وحين قرص وقار لكن ظواهرته يوحى مقالك يا أنكو ينضالعينا وحنو لنا هاي إله سبحانه وتعالى إلا الرالقلي أيا كهبون إلا الرالقلي عيدا إلهي أن مسلم أنا هين صادرتي برامجته ينكسو كوبنا عبد الله محمد قرط دار المشهد وحقول دار منها ها قلت إله كبر ضمانتين جيبي جنبه ذاك الصومالي ومدة كركة وأنا وهذا سمعتها وناجستين واقرتي وما ذاك الواحد هو آخرين هيانا وحكفي عن إلهي هو آخرين كفي عن